dadkaygu isxilqaan dal walba dadkiisa dhisee isxilqaan dalka yaale inagaale dalka yaale inagaale dadkiisa dhisee muwaadinu isxilqaan inta aan warka u dirayno inta aan mataqaana dantu nagala dhaxayso inta islaamka inta mataqaana magaca maaragtay yaani mataqaana degmadan awalba taakulan jirtay oo biyoole oo nimanka la yiraahdo ganacsatada leh dadka iyaga iyo dadka islaamka oo dhan baan u wartirsanaynaa waxaan u baahanaa arinta in la ka taakuleeyo hadda isbitaalkii waan soo dhameynay stationkii waan soo dhameynay markii hadda meesha tan guriga degmadan hadda mata la tacaalaynaa intii 4 sano hadda ka hor hawsha soo wadnay waxaan doonaynaa ilaahay biidnillaahi kariim inaad hawshaan ugu gacan qabataan dadkaan u shaqaynaynaa inagu hadda dan gaara kama lihin dadka islaamka iyo dadka kulli bataqaan ehelka dhulkaan u ahba waxaan ka rabnaa arrintaa inay naga taakuleeyaan intaas baan doonaynaa biidnillaahi kariim halkaan waxa taagan oo halkaan ku diyaarka waa guddigii degmada dibudhiska oo hore uga soo shaqay jiray shaqadan waxay bilaabeen 2016 bishii afraad intaasna tabarucaad ayay ku wadeen wax naga kaalmeeyana waa dad badan oo muslimiina ama ganacsato leh ama qurba joog leh ama wax sidaqaysanaya ayaa nagu kaalmeey jiray waxaan codsanaynaa nakoo ku hadleynaa afka degmada baxdo iyo nawaaxigeeda waxaan codsanaynaa hadda waxaan dhismaheedu noo socdaa gurigii degmada ayaa noo socda oo socda hal asbo waxaan codsanaynaa in kaalmo weyn oo xagga ilaahay loola jeedo nagu kaalmeeyo waxaan nahay guddiga horumarinta degmada baxdo ee ka shaqeeya dhismaha mashruucyada guud ahaan degmada ka shaqeeyaan nahay anoo ku hadlaya guddiga magaciisa codkiisa waxaan ku leeyahay meeshan aan joognaa hadda waa xaruntii magaalada xaruntii degmada baxdo oo laga dhisayo gurigii ummadda laga dhisayo shaqada ayada aan u wadnay horumarinta degmada baxdo guddigeenu waxay socotaa waxay bilaabatay 2016 sanadku markii taariikhdu ahayd bishii afaraad ay bilaabatay meelo badan oo uu ka mid yahay isbitaalku aan soo dhamaynay xaruntaana hadda awal hore waa aasaasneed hadda dhismaheedii la bilaabay ilaa hadda asbuucu socdaa waa u jeedin shaqada soconaysa waxaan adduun weynaha ka codsanaynaa dadkii ee degmada horumari jiray ka codsanaynaa dalka iyo dibadda meel kasta uu joogo in dhismaha lagu kaalmeeyo nala ku gacan siiyo nala ku gargaaro degmadu waa xamili weysay waa laga gaabiyay waana dhismo ballaaran oo muddo socod doona ilaahay intii uu doono socod doonta adduunka wixii hay'adaha ku shaqale adduunka wixii ku shaqale wixii ku tabarucaya sidaasan aan codsanaynaa haddii ilaahay dadkaygu isxilqaan dal walba dadkiisa dhisee isxilqaan dalka yaale inagaale dalka yaale inagaale dadkiisa dhisee muwaadinu isxilqaan